qisada muuqaalku waxay ka bilaabmaysaa keen cagaaran halkaas oo koox ugaarsato ah ay qabteen dhowr daanyeer si loo baaro xayawaanka. Muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa Genesis oo ah shirkad hormuud ka ah biologiga oo diiradda saarta daaweynta hidde-sidaha. Will Rodman oo dhakhtar ka ah shirkadda ayaa tijaabiyey dawadiisa cusub ee fayraska ku salaysan LZ112 ee daanyeerada. Wuxuu rajaynayaa inuu dabo u heli doono cudurka Alzheimer's. Daawadan waxaa la siinayaa daanyeero dhedig ah oo lagu magacaabo Bright Eyes, taasoo si cajiib ah ku xalinaysa lixiraalaha 20 dhaqdhaqaaq oo kaliya. Isagoo ku faraxsan guusha tijaabadiisa, Will wuxuu u degdegay kormeerihiisa Jacobs. Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in kadib ku dhawaad 5 sano oo shaqo adag ah oo ku salaysan daawada uu hadda haysto xog ku filan si uu ugu gudbiyo baaritaanka aadanaha. Jacobs sidoo kale wuu ku farxay warka, sidaa darteed wuxuu u ogolaaday Will inuu u soo bandhigo natiijooyinkiisa guddiga si loo ansixiyo. Maalinta xigta, Will wuxuu soo bandhigayaa khudbadda cilmi baaristiisa ku saabsan LZ112. Wuxuu ku tilmaamay daawada sida daweynta hidde-sidaha oo u ogolaanaysa maskaxda inay soo saarto unugyo cusub oo isdayactiraya. Tani waxay noqon kartaa daawo rajo leh oo loogu talagalay cudurka Alzheimer's. Saamaynta kaliya ee ay leedahay waa muuqaalka indho cagaar ah oo aan waxyeelo lahayn. Will wuxuu u xaqiijinayaa xubnaha guddiga inay heli doonaan fursad ay ku daawadaan sirta cajiibka ah ee daanyeerka ku lug leh cilmi baaristooda. Meel kale, daryeele ayaa u soo dhawaanaya Bright Eyes qafiskeeda si uu ugu diyaariyo bandhiga, laakiin si lama filaan ah ayay u xanaaqday oo weerartay. Tani waxay ku kaliftay ilaaliye kale oo lagu magacaabo Franklin inuu yimaado goobta. Labaduba waxay si taxadar leh isugu dayeen inay ka soo saaraan qafiska iyagoo isticmaalaya tiirka xakamaynta. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ka sii xanaajinaysaa Bright Eyes waxayna maamulaysaa inay ka baxsato qafiska. Kadibna waxay si waali ah ugu dhex oroday xarunta ka hor intaysan ku jabin daaqadda muraayadda ee qolka shirarka. xubnaha guddiga ayaa la yaabay markii ay arkeen iyadoo xaaladan ku jirta, laakiin ka hor intuusan Will ka falcelin, daanyeerada maskiinta ah waa la toogtay oo la dilay. Kadib guddiga agaasimayaasha ayaa diiday soo jeedinta Will ee ah in horay loogu sii wado tijaabooyinka aadanaha. Jacob wuxuu rumaysan yahay in xanaaqa Bright Eyes uu ka dhashay waxyeelada daawada, sidaa awgeed wuxuu amar ku bixinayaa dhammaan daanyeerada soo haray in la dilo. Franklin wuxuu ka baryay inaanu sidaa yeelin, laakiin maamuluhu wuu diiday maadaama ganacsigiisa uu daneeyo. kadib Franklin wuxuu Will tusay daanyeer yar oo lab ah oo uu ka helay gudaha qafiska Bright Eyes. Tani waxay ka dhigaysaa inay ogaadaan inay si fudud u ilaalinaysay ilmaheeda. Franklin wuxuu u sheegay inaanu lahayn geesinimo uu ku dilo ilmaha yar, sidaa darteed wuxuu ka codsaday Will inuu daryeelo isaga. Will ayaa marka hore ka warwareegay inuu qaado mas'uuliyaddaas weyn, laakiin markii lagu adkeeyay wuu ogolaaday. Dabadeed wuxuu ilmaha u kaxaynayaa guriga oo wuxuu barayaa aabihiis Charles. Dhaqso ayay u jeclaadeen oo waxay u bixiyeen Kaiser. Waxaa markaas daaha laga qaaday in Charles uu la ildaran yahay cudurka Alzheimer's uuna u baahan yahay kormeer joogto ah. Isagu waa sababta ugu weyn ee uu Will ugu baahnaa inuu dabo u helo cudurka. Maalintii xigtay iyo jikada, Kaiser wuxuu si naxdin leh u qaatay dhalada caanaha oo uu naftiisa ku quudiyay. Tani waxay ka dhigaysaa aabaha iyo wiilkaba inay la yaabaan, iyadoo la tixgelinayo in daanyeerku uu jiro 2 maalmood oo kaliya. Will kadib wuxuu go'aansanayaa inuu meel fog ka shaqeeyo si uu u daryeelo aabihiis iyo daanyeerka yar labadaba. Waxa kale oo uu bilaabay inuu dib u habeyn ku sameeyo guriga si daanyeerku uu si xor ah ugu boodboodo. Dhowr maalmood oo shaqo adag ah kadib, qol dhan ayaa loogu talagalay Kaiser oo ka kooban sagxadaha, xargaha iyo dhismooyinka fuulitaanka. Waqti kadib wuxuu bilaabay inuu muujiyo calaamado caqligal ah oo cajiib ah. Will wuxuu barayaa luqadda dhagoolada wuxuuna si joogto ah u duubaa horumarkiisa. Markuu gaaro 2 sano, Kaiser si cajiib ah ayuu u xalinayaa xujooyinka loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 8 jir. Markuu 3 jirsado, awooddiisa garasho ayaa ka badan kuwa carruurta da'diisa ah. Will wuxuu qiyaasayaa in Kaiser uu ka dhaxlay hiddo-wadaha LZ112 hooyadiis, maadaama indhihiisu ay sidoo kale leeyihiin jeexjeexyo cagaaran oo isku mid ah. Dhanka kale, Charles caafimaadkiisu wuu sii xumaanayaa maalin kasta oo dhaafta, iyadoo cudurka Alzheimer's-na uu ka sii darayo. Will wuu awoodi waayey inuu daawado aabihii oo xanuunsanaya, sidaas awgeed Will ayaa ka soo xadaya qaar ka mid ah dhalooyinka daawada LZ112 ee Genesis. Kadibna wuxuu siinayaa aabihiis isagoo rajaynaya inay dhibaatada ka fududayso. Waxaa la yaab leh, maalinta xigta Charles wuxuu u muuqdaa mid dib u soo kabsaday oo wuxuu u garaacayaa biyaanada si quman. Aragtidan ayaa ka dhigaysa Will mid aad u qiiraysan maadaama daawadiisu ay ugu dambeyntii ku shaqaysay aadanaha. Dhanka kale, Kaiser wuu masayray markuu arkay carruurta deriska ah oo si xor ah u ciyaaraysa. Markuu waayo cid arkaysa, wuxuu ka sii baxayaa daaqad furan si ugu biiro. Nasiib daro, mid ka mid ah gabdhihii ayaa aragtay isaga oo si muuqata u baqday. Aabaheed oo xanaaqsan, Hannisker ayaa kadib wuxuu la soo baxay Debbie wuxuuna bilaabay inuu weeraro Kaiser. Daanyeerka maskiinka ah wuu qaylinayaa si loo caawiyo maadaama uu aad uga yar yahay inuu isdifaaco, laakiin Will ayaa ku imanaya waqti yar oo ka badbaadinaya dhibaato kasta oo halis ah. Kadib wuxuu Kaiser geynayaa beerta xayawaanka, halkaas oo dhakhtarada xoolaha Caroline ay daryeelayso nabaradiisa. Waxay la yaabtay caqliga Kaiser markuu ku hadlo luqadda dhagoolada. Wuxuu xitaa tilmaamay in Will uu Caroline u kaxeeyo casho, isagoo ka qoslinaya labadoodaba. Maalinta xigta, Caroline waxay soo booqanaysaa gurigooda
waxayna la dhacday bay'adda uu u abuuray. Si kastaba ha noqotee, waxay xusuusinaysaa in kaysar uu ugu dambeyntii u kori doono xayawaan weyn, awood leh oo leh khatar suurtagal ah. kadib waxay soo jeedinaysaa inuu geeyo meel bannaan suu ugu jawi bedelo. fikradda wuu jeclaystay, sidaa awgeed dhammaantood wuxuu u kaxaynayaa buundada Golden Gate ee keynta Redwood. isla markii ay halkaas gaareen, kaysar wuxuu bilaabay inuu fuulo geedaha oo ah wax uu sameeyo markii ugu horeysay. wuxuu si fiican ugu raaxaysanayaa waayo aragnimada, dadkuna sidoo kale waxay u muuqdaan inay ku faraxsan yihiin isaga. muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa 5 sano kadib. kaysar wuxuu noqday daanyeer qaangaar ah, wuxuuna bilaabay inuu su'aalo ka keeno booskiisa adduunka. maalin maalmaha ka mid ah markuu ka soo laabtay keynta Redwood, Will wuxuu dareemay inay wax dhibayaan kaysar oo uu wax ka weydiiyey. kaysar wuxuu rabaa inuu ogaado waalidkiis, sidaa darteed Will wuxuu u kaxaynayaa Jensis. dabadeed wuxuu si run ah daaha kaga qaaday in hooyada kaysar la siiyey daawo kor u qaadaysa garaadkeeda, kadibna isaga loo sii gudbiyey. nasiib daro waxay u dhimatay si xun, sidaa darteed Will ayaa korsaday. xaqiiqdan waxay burburisay kaysar maadaama sanadahan oo dhan laga qarinayay mugdiga ku saabsan asalkiisa dhabta ah. maalintii xigtay weli wuu ka xanaaqsan yahay geerida hooyadiis, kuna wareersan yahay aqoonsigiisa. isagoo quraacanaya ayuu arkay Charles oo u isticmaalaya fargeeto dhinac khaldan suu wax u cuno, sidaas darteed si tartiib ah ayuu u saxayaa. markuu arkay arrintan, Will wuxuu ka shakiyey in xanuunka aabihiis uu dib u soo laabanayo. kadib wuxuu dhowr tijaabo ku sameeyey Jensis oo uu ogaaday in habka difaaca Charles uu sameeyey unugyada difaaca jirka oo u adkaysan kara daawada LZ-112. tani waxay ku keenaysaa Will naxdin weyn maadaama uu ogaaday in aabihiis uusan waqti badan u harin. dhanka kale, Charles wuxuu u baxay guriga banaankiisa oo wuxuu galay baabuurka Hansika ee baakinka yaala. isagoo xaaladiisa jahwareersan ayuu isku dayey inuu baabuurka wado, balse si lama filaan ah ayuu shil ugu galay baabuurta kale. Hansika markuu tan ogaaday, isagoo xanaaqsan ayuu soo baxay oo ka saaray Charles. kaysar wax kasta wuxuu ka arkayaa daaqadiisa, isagoo noqonaya mid sii xanaaqsan. markuu u adkaysan kari waayo ayuu si degdeg ah uga soo baxay guriga oo uu si ba'an u weeraray Hansika. miskiinka ayaa isku dayey inuu cararo, laakiin kaysar ayaa garaacay oo ka qaninay mid ka mid ah farihiisa. markiiba wuu garwaaqsaday waxa uu sameeyey, laakiin nasiib daro dhowr qof oo deriska ah ayaa goobjoog ka ahaa dhacdada. kadib kaysar waxaa la geynayaa goob lagu xanaaneeyo daanyeerada, kaasoo uu maamulo nin magaciisa la yidhaahdo John London. Will wuu yaro welwelsan yahay maadaama wiilkiisa uusan weligiis ka maqnaan guriga, laakiin John wuu hubaa in kaysar uu ku kobci doono la joogidda daanyeerada kale. damaanad qaadkan kadib, Will si cagajiid ah ayuu kaysar u macsalaameeyey, isagoo u ballan qaaday inuu dhowaan soo laaban doono. dhanka kale, caafimaadka Charles wuxuu sii wadaa inuu hoos u dhaco maadaama habdhiskiisa difaaca uu diiday LS-112. isagoo rajo ka qaba daweynta, Will wuxuu u imanayaa Jacob wuxuuna la wadaagayaa faahfaahinta tijaabada ku saabsan aabihiis. wuxuu sharaxay in dawadu ay awood u leedahay inay kor u qaaddo awoodda garashada, laakiin saamaynta ay ku leedahay cudurka ma aha mid waarta. sidaa darteed wuxuu wax ka bedelay nooca fayraska suu u noqdo mid awood badan oo waxtar leh. Jacob wuu la dhacay cilmi baarista, sidaa darteed wuxuu u oggolaaday inuu dib u bilaabo tijaabooyinka xayawaanka ee xarunta. dib ugu noqoshada xarunta daanyeerada, kaysar wuxuu ku dhibtooday inuu la qabsado jawiga cusub. daryeelaha Dodge sidoo kale wuxuu siinayaa waqti adag, isagoo si joogto ah u silciya. maalin maalmaha ka mid ah, kaysar wuxuu si cabsi leh ugu dhowaaday daanyeerada kale markii lagu sii daayay goobta guud ee ciyaarta. si kastaba ha ahaatee, Rocket, hogaamiyaha daanyeerada, ayaa ka jeexjeexay dharkiisa suu ugu caddeeyo inuu yahay hogaamiyaha, kadibna si xoog leh ayuu u weeraray isaga. dhanka kale, Jensis wuxuu meesha daanyeerada ka keenayaa daanyeero suu u tijaabiyo LZ-113 cusub oo la hagaajiyey. Will ayaa mas-uul ka ah mashruuca oo dooranaya daanyeer lagu magacaabo Koba tijaabadiisa koowaad. habeenkaas, dawadii cusbeed ee shaybaarka ayuu soo xaday oo guriga keenay suu uu aabihii ugu daweeyo. si kastaba ha ahaatee, Charles wuu diiday daaweynta, wuxuuna si naxdin leh ugu dhintay isagoo hurda. xarunta daanyeerada, kaysar wuxuu saaxiib la noqday daanyeer dhadig ah oo lagu magacaabo Maurice. labaduba waxay si degdeg ah ugu xiriirayaan xaqiiqda ah inay labadooduba yaqaanaan luuqadda dhagoolada. habeenkii dambe, Dodge wuxuu dhowr saaxiibo ah keenayaa xarunta daanyeerada, wuxuuna u kaxaynayaa qaybta qafiska. mid ka mid ah asxaabta ayaa caayay kaysar, laakiin kaysar ayaa xanaaqay oo cunaha qabtay. dabadeed si caqligal ah ayuu mindida jeebka uga xaday ka hor intaanu sii dayn. kadib kaysar wuxuu farsamaynayaa hub yar isagoo isticmaalaya ulo iyo mindidii uu xaday. kadibna wuxuu furay qafiskiisa suu u galo goobta ciyaarta guud. intaas kadib wuxuu qafiska ka soo furay goriilo weyn oo lagu magacaabo Buck, isagoo kasbaday kalsoonidiisa. qaybta xigta ee qorshihiisa, kaysar wuxuu Rocket u soo saaray aagga ciyaarta guud oo si degdeg ah u garaacay. marka daanyeerka maskiinka ahi uu arkay Buck iyo kaysar oo midoobay, islamarkiiba wuu isdhiibay oo u sujuuday kaysar, isagoo u qiraya inuu yahay hogaamiyaha cusub ee xarunta daanyeerada. dhanka kale, Franklin wuxuu bilaabay inuu la kulmo dhiigbaxsanka ah kadib markuu si lama filaan ah ugu dhacay LZ-113 intii lagu guda jiray baaritaanka. wuxuu
wuxuu u degdegay inuu wiil ugu digo gurigiisa laakiin ma awoodin inuu gaaro. markuu Franklin baxay ayuu la kulmay Hansika oo si lama filaan ah ugu hindhisay isagoo u gudbinaya fayraska. meel kale Kaysar wuxuu qaadanayaa koodhka gelitaanka ee albaabka wuxuuna u adeegsanayaa inuu ka baxsado xarunta daanyeerada habeenkaas. wuxuu toos u aadayaa guriga wuxuuna arkay wiil oo la jiifa Carlin, laakiin halkii uu ka kicin lahaa wuxuu furay talaajada oo qaatay qaar ka mid ah qasacadaha daawada LZ-113. intaas kadib Kaysar wuxuu daawada dib ugu soo celinayaa xarunta daanyeerada wuxuuna sii daynayaa gaaska isagoo rajaynaya inuu kor u qaadi doono caqliga dhammaan daanyeerada kale. maalintii xigtay John wuxuu arkay daanyeerada oo iskugu soo ururay dood, laakiin si degdeg ah ayay u kala firxadeen markay arkeen isaga. habeenkaas kadib dhammaan daanyeerada ayaa ku soo noqday qafiskooda marka laga reebo Kaysar. Dodge ayaa ugu yimid goobta ciyaarta guud wuxuuna isku dayay inuu dib ugu celiyo gudaha isagoo isticmaalaya qori casri ah. si kastaba ha ahaatee Kaysar wuxuu ku dhawaaqayaa maya oo garaacaya isagoo suuxiyay ka hor inta uusan u jeedin qaybta qafiska. kadibna daanyeerada kale ayuu ka soo furayaa qafisyada oo ku qaylinaya. markuu maqlay buuqa, waardiye kale ayaa u soo yaacay si uu u soo farageliyo, laakiin daanyeerada kale ayaa si xun u weeraray isaga. si kastaba ha ahaatee Kaysar ayaa joojiyey asxaabtiisii oo wuxuu ninka ku xiray qafis naxariis darteed. wuxuu taa beddelkeeda aadayaa si uu uga hortago Dodge oo uu isticmaalayaa tuubada biyaha si uu ugu buufiyo. nasiib daro biyuhu waxay taabanayaan qoriga korontada ee Dodge taasoo keentay inuu u dhinto korontada. intaa dabadeed daanyeeradii carooday ayaa xaruntii ka cararay oo u soo dhaqaaqay dhanka magaalada. subaxdii xigtay wiil wuxuu aadayaa xarunta daanyeerada balse wuxuu arkay iyadoo gebi ahaanba burbursan. dhammaan daanyeerada way baxsadeen wuxuuna gasacadaha LZ-113 oo maran ka helaya qaybaha qafisyada. dhanka kale daanyeerada baxsadka ah ayaa loo qaybiyey 2 kooxood. kooxda ugu horeysa ee uu hogaamiyo Buck ayaa aadaya qaybta beerta xayawaanka say u sii daayaan daanyeerada qafiska ku jira, halka Kaysar uu hogaaminayo kooxda kale si uu u weeraro Genesis. muuqaalka soo socda markuu Jacob yimid Genesis wuu naxay markuu ogaaday inay ku hareeraysan yihiin boqolaal daanyeero ah. waxay kaloo sii daayeen daanyeeradii kale ee loo keenay maadooyinka tijaabada LZ-113. isagoo argagaxsan Jacob wuxuu ugu yeeray ciidamada oo si degdeg ah u fuulay diyaaradda booliiska si uu u baxsado. muddo kadib labadii kooxood ee daanyeerada ayaa dib isugu soo laabtay oo waxay samaysteen hal urur oo weyn. iyadoo ay magaalada oo dhan ka wadaan qalalaase ayaa dawladda u soo dirtay ciidamada iyo saraakiisha gaarka ah. wiil wuu ogyahay in Kaysar uu kooxda u hogaaminayo dhanka kaynta Redwood, sidaa darteed wuxuu u degdegay si uu uga hortago isaga. dhanka kale buundada Golden Gate oo isku xirta magaalada iyo kaynta ayaa si aad ah loogu xiray ciidamo boolis ah, waxaana lagu amray inay laayaan daanyeerada waalan. si kastaba ha ahaatee Kaysar wuxuu mar kale tusay caqligiisa gaarka ah isagoo amray asxaabtiisa inay kala qaybsamaan. koox ayaa kor u tafaysa fiilooyinka sare halka midda kalena ay ka lulanayso hoosteeda si looga fogaado xanibaadda. iyadoo taasi ay jirto, Jacob wuxuu kashifay Kaysar inuu yahay hogaamiyaha kooxda wuxuuna ku amray askarta inay dilaan, laakiin markii ay rasaasta furaan Buck ayaa hawada u booday isagoo isku dhigaya dhammaan rasaasta. kadib wuxuu si geesinimo leh u soo dejinayaa helikobtarka ka hor intuusan u dhiman dhaawiciisii. markay diyaaraddu dhulka ku soo dhacday, Jacob wuxuu arkay isagoo si quus ah ugu dheggan cirifka. wuxuu ka baryay Kaysar inuu caawiyo, laakiin Kaysar meesha ayuu uga tegayaa isagoo u ogolaanaya Koba inuu gacantiisa ku dilo. Koba ayaa markaas ka tuuray helikobtarkii buundada taasoo keentay in Jacob uu ku dhaco badda hoose. intaas kadib daanyeerada ayaa u soo gudbaya kaynta Redwood iyagoo ku soo noqonaya deegaankoodii dabiiciga ahaa. wiil wuxuu sidoo kale si uun u maaraynayaa inuu ka soo gudbo xanibaadda oo uu yimaado kaynta. ugu dambeyntii wuxuu la midoobay wiilkiisii lumay wuxuuna ka codsaday inuu guriga u raaco. si kastaba ha ahaatee Kaysar oo hadda u hadli kara sida dadka ayaa ku jawaabay gurigayga waan joogaa. tani waxay ka nixisay wiil, laakiin sidoo kale wuxuu fahmay in daanyeerkii uu jeclaa uusan doonayn inuu ku ekaado guriga dhexdiisa oo keliya. sidaa darteed wuxuu u ducaynayaa Kaysar si uu u bilaabo noloshiisa cusub ee kaynta. muuqaalka ugu dambeeya waxaan aragnaa Hansika oo bilaabay shaqadiisa duuliye ahaan garoonka caalamiga ah ee San Francisco. ka hor intuusan diyaaradda raacin wuxuu arkay sankiisa oo dhiig baxaya, balse si degdeg ah ayuu u tirtirayaa. filimku wuu soo idlaaday iyadoo gudiga baaritaanku uu soo bandhigayo wadamo badan, taasoo muujinaysa in fayraska LZ-113 uu ku dhow yahay inuu ku fido adduunka oo dhan. muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena hoos noogu reeb kommentiga. kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.